degmada Duruqsi waa mid ka mid ah degmooyinka gobolka Togdheer ee Soomaaliland waxay 120 kiiloomitir ka xigtaa Burco dhinaca koonfur. Degmadan ayaa waxa ka socda horumar kaas oo hogaaminayo gudoomiyaha degmada Axmed Gaabiyoon. Intuu xilka hayay gudoomiye Axmed Gaabiyoon waxa uu wax la taaban kara ka qabtay dhinacyada arrimaha bulshada, nabadgelyada iyo kaabayaasha dhaqaalaha. maadaama ay ku taalo degmadu xadka Soomaaliland iyo Itoobiya waxay leedahay muhiimad juqraafi ah oo facweyn. waxyaalaha la taaban karo ee uu qabtay gudoomiye Axmed waxa kamid ah isku xirka qurbo joogta degmada kuwaas oo qayb libaax la ka qaatay horumarka degmada. dhawaan bay ahayd markii ay dugsi sare ay ka dhiseen degmada Duruqsi. waxaan ku hadlayaa magaca degmada ahna mas'uulka degmada Axmed Cabdullaahi Gaabiyoome. waxaan halkan ka salaamayaa ururka horumarinta degmada Duruqsi ee ku nool daafaha caalamka ku kala nool. waxaan leeyahay waxaa runtii soo hoysay guul aad u qaali ah oo laba ilaawaana oo la oran karo waa guulaha bani'aadmigu iyo aakhirada ku guulaysto hawl ka mid ah oo ah secondary-ga degmada Duruqsi ee ay ku soo tabarucdeen xooggiinii idinkoo u baahan adduunka soo bixinaysaan aa garateen inaad dadkiina kaga saartaan jaaliyadda ama dayaca kaga ilaalisaan. isku xirka hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah oo iyaguna wax muuqan kara ka qabtay degmada. hay'adda World Vision ayaa ka mid ah hay'adaha caawimaadda siiya degmada Duruqsi waxay ugu deeqday agabka waxbarasho oo tayo leh. gudoomiyaha degmada Duruqsi Axmed Gaabiyoon ayaa sheegay inay hay'aduhu ka qayb qaataan horumarka degmada sida hay'adda World Vision oo iyadu ah tan ugu waxqabadka badan sida uu qirayo gudoomiye Axmed Gaabiyoon. hay'adda World Vision oo runtii maanta noo keentay adeeg aad iyo aad aan ugu baahnay dugsiga secondary-ga qowmka soo caawisay horena ugu soo caawisay dibna ugu soo caawinayso oo ballan badan na siisay oo ay qaban doonto wax qabad badan oo soo socda. aad baan ugu mahadnaqayaa hay'adda World Vision oo runtii aan oran karo hay'ad wax qabada xagga degmadaba ma jirto. taasoo aan filayo inaan Somaliland hore maamulka Dooran hayay inaan Somaliland hore u arag hay'ad la mid ah wax qabadkeeda la mid ah World Vision. aad baan ugu mahadnaqayaa iyadii shaqaalaheeda baan soo dhaweynayaa. waxaan kaloo halkan aan ugu mahadnaqayaa ururka UHB ee dugsigan aasaasay secondary qowdin aasaasay oo runtii aan oran karo ilayska maanta u baxaya degmada isaga waxaana u sooba iyaga iftiinka maanta baxaya iyaga u sooba in cid kasta aragto oo u soo hidowdo inay ku qabato degmada ama dugsiga secondary-ga. ilaa baan ugu mahadnaqayaa. waxaan Axmed labaad ugu celinayaa hay'adda World Vision runtii anigu aan ilaaw horumarka degmada ilaa iyo xadkii ka ay taagtay wax qabad aan la soo koobi karin. kala rajayno waxa ka haray mabaahiyaadkayga inay noo daboosho oo noo sii daboosho iyadoo maanta markii labaad baahi badan noo dabooshay. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay marka saddexaad ku guulaysataan ama marka afraad inay daboosho baahiyaadka nahay. taasaan oran karo cid kale naga warhaysaan aan World Vision ahay. ugu dambeyntii waxaa muuqata horumar lagu tiirsado oo ka socda degmada Duruqsi oo ay ku amaanan yihiin qurbo joogta degmada iyo maamulka oo ah kuwa inta badan iskaashada. I